الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، maanta oo ay taariikhdu tahay kowda bisha Shawaal 1441 oo ku aadan 24 bisha May 2020, waxaan kelimadeena baraarujinta bulshada aan ku soo qaadanaynaa xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam: sabcatun yudhilluhumullahu fii dhillih yawma laa dhilla ilaa dhilluh. xadiidkan waxaa warinaya Bukhaari iyo Muslim, wuxuuna ka mid yahay min xadiidi Abi Hurayra radia allaahu canhu. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi: sabcatun yudilluhum allahu fii dhillihi yowma laa dhilla ilaa dhilluh, imaamun caadilun wa shaabun nasha'a fii cibaadati illaah ورجل قلبه متعلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. حديث كان نبي عليه الصلاة والسلام وحوك الشيقي تطبقف إن إلهي سبحانه وتعالى أو هوسنايو أم بهوس كيس جلنايا مال أن هوس جرين الله هوس كيس مأوغي مركا قف كستا oo ka mida ummadda nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la gudboon inuu xadiidkan ka faa'iidaysto kuna camal falo. xadiidkan toddobada nabigu waa noo tiriyey. waxaa lambar 1 ah imaamun caadil, hogaamiye caadil ah. hogaamiye caadil ah, hogaamiye markii lagu leeyahay ma aha keliya imaamul acdamka amba madaxweynaha ma keligiisa ma aha. imaam marka la leeyahay qof kasta oo mas-uuliyad ummadda u haya, mas-uuliyaddaas amba ha yaraato amba ha weynaato. haddii guddoomiye degmo uu yahay, haddii guddoomiye gobol uu yahay, qof kasta oo xil bulshada u haya ayaa laga rabaa cadaaladda. imaamun caadil markii la leeyahay hogaamiye caadil ah. imaamun caadil, hogaamiye caadila. hogaamiye caadil marka maxaa loola jeedaa? huwa aladii yattabicu amra allaah, waa ninka raaca amarka ilaahay subxaanahu wa tacaala. yuudacu kulla shayin fii mowdicih, wax kastaba sida looga talagalay u dhiga. kadib markii uu ka baaraandego cadaaladda, kadib markii uu la mushaawareeyo, la showro, la tashto dadka asiga la taliyaashiisa ah, shay kastaba meeshii looga talagalay dhigaaya. kaas ayaa la yidhaahdaa huwa aladii yattabicu amra allaah wa yuudacu kulla shayin fii mowdicih min gayri ifraatin walaa tafriiq. xadgudub la'aan iyo ka gaabin la'aan. xadgudubna lama ogola, ka gaabinna lama ogola. oo mas-uuliyadda in laga gaabiyo, mas-uuliyadda in lagu xadgudbo oo waxaan ilaahay iyo rasuulkiisa aysan kuu fasixin aad ku dhacdo. waa min gayri ifraatin walaa tafriiq. wa huwa alcadlu fii nafsi, naftiisa in ou caadil, naftiisa ou u cadaalad sameeyo. alcaadilu fii xukmih, maamulkiisana ku cadaaladnama samaynaya. kaas ayaa la yidhaahdaa imaamun caadil. 2 ashaabu aladii nasha'a fii cibaadati illaah. lambarka 2 oo ahaa nin dhallinyaro ah oo ku barbaaray cibaadada ilaahay na wuxuu ka mid yahay 7 qof oo alla subxaanahu wa tacaala hoosinaya maalinka qiyaamaha. waa maalin aan hoos jirin alla hooskiisa maahane.
فهو شاب ونن دلنيرة oo taraka jamiica muladaati alxayaat ka tegey dhammaan macaanyaalaha adduunka oo wastabdalaha ku beddeshay bisabri in naftiisa uu xakameeyo daacada ilaahay uu ku xakameeyo amarka ilaahay uu ku xakameeyo linayli muladaati alaakhira si uu u gaaro macaanta aakhira si uu u gaaro warajulun kan saddexaad waa qof qalbuhu mutacalliqun bilmasaajid nin qalbigiisa masaajidada ku xiran oo haddii uu masaajidka ka soo tagana qalbigiisa masaajidka yacni ku xiran ay shadiidu lxubbi lilmasaajid waa ninka masaajidda iyo ku dukashadeeda iyo jamaacada laasimideeda yacni qalbigiisa ay ku adag tahay oo jecel masaajidada ninkaas waay salaadaha dhan masaajidada u xaadiraya si yacni uu ugu qayb galo u laasimo yacni jamaacada afar warajulaani taxaabbaa fi llaahi laba qof oo alla dartii isu jeclaaday ay an takuuna almaxabbatu khaalisatan lilaah maxabbada iyo jeceelka alla dartii inuu ahaado ayaa la rabaa laa yuraadu biha ilaa wajhahu lkariim alla wejigii maahane oo aan wax kale loola jeedin shan warajulun dacathu imra'atun qof yacnii haweenay u wacday ee fuxshi iyo dhibaato iyo xumaan iyo fisqi yacni loogu wacay faqaala innii akhaafullaah yidhi aniga alle ayaan ka cabsanaa alla dartii yacni xumaanta ugu istaagay sidaas limid ah gabadha haddii nin oo u wacana sidaas oo kalow ay dacathu imra'atun haweenay u wacday ila alfaaxisha xumaan iyo xadgudub iyo dembi faqaala yidhi innii akhaafu llaaha alla ayaan ka cabsanaa yidhi marka ninkaas ayaa ka mid ah dadka oo hooska ilaahay subxaanahu wa tacaala hooskiisa gelaya maalinka qiyaamaha maalin aan hoos jirin alla hooskiisa maahane lix warajulun tasadaqa bisadaqatin nin sadaqaystay oo fa akhfaahaa sadaqada qariyey xataa laa taclama shimaaluhu intaysan ka ogaanin bidixdiisa maa tunfiqu yamiinuhu wixii ay bixinaysa midigtiisa falmutasadiqu mutasadiq ninka wax bixinayaa la yidhaahda mutasadaq ninka wax la siinayo wa falmutasadiqu inamaa yatacaamalu maca allah alla ayuu la macaamiloonayaa laa maca almasaakiin waxa uu bixinaya iyo kaalmada uu masaakiinta kaalmaynaya wuxuu ula jeedaa alle sidaas darteeda walmutasadiq yatacaamalu maca allaah laa maca almasaakiin waasadaqatu hiya sadaqada waxaa loola jeedaa maa yucطaa calaa wajhi ataqarubi ila allah wax alle u dhowaansho darteeda loo bixinaya ayaa la yidhaahdaa sadaqo iyo cidda loogu talagalay oo ilaahay uu sheegay iyo rasuulkiisa la siinaya sumiyat bidaalika sadaqo ayaa lagu magacaabay liannahaa tadullu waxay tusinaysaa calaa sidqi iimaani saaxibihaa ninka bixinaya iimaankiisa yacni runnimadiisa wa kan ugu dambeeya oo toddobaad oo ka mid a dadka alla subxaanahu wa tacaala hooskiisa la hoosinayo maalin aan hoos jirin alla hooskii maahane warajulun nin dakara allaaha alla xusay khaaliyan si gaar ah yacnii si khaali ahoo meel aan dad ka dhoweyn waay oo fafaadad caynaahu indhihiisa ay ilmeeyeen marka ninkan makaanadan iyo derajadan iyo sharaftan wuxuu ku gaaray ninkan yacni bihalaathi sifaatin saddex tilmaan ayuu ku gaaray waa nin si gaara alla dartii ugu ooyay oo ilmihiisa ilaahay uu xusay si khaali ah kadibna ilmihiisa ilmeeyeen marka liannahu min addaakiriin waa mid wuxuu ka mid yahay dadka alla xusaaya tan labaadna waxaa waaye liannahu kaana fii khilwatin birabbi nin alle la gaar ahaa oo baciidan can innaasi dadka ka foga tan saddexaad waxaa waaye liannahu faadat caynaahu biddumuuc waa nin alle dartii u ilmeeyey waay marka sidaas darteeda ayuu ku muteystay in uu ka mid noqdo toddobada nebiga uu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo maalinka qiyaamaha alle uu hoosinaya
مالن أن هوس جرن الله هوسكي ما هني وهذا دليل الإخلاص إخلاص كأي دليل أتهنن سجار الله درتي أبوي أسوء الله حصاي فذكر الله خاليا منفردا عن الناس دتك يعني ككلئة أسيقوا دتك ككلئة ميلان دت جوجن أبعد عن الشهبة استطس إيو يعني أو شبهات كينايا أو عبادة شبهات قلنايا كفك وعن الرياء والسمعة استطس إي اسم غشينا كفك ما أنت أو أنكسو قادني كلمة دينا برارجون تبولشدا حديث النبي عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله هل كان ينكسو كوبينا وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.